guddida beesha garxajiis nabadeynta u joogta degmada Ceelafeen ee gobolka Sanaag uu hogaaminayo gudoomiyaha guddida garxajiis Axmed Cismaan Cadaguud ayaa war-saxaafadeed ku qabtan degmada Ceelafeen ee gobolka Sanaag ku sheegay in la ilaaliyo isbahaysiga ka dhaxeeya urur siyaasadeedka ka iyo xisbiga wadani. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin. Halkan waxaanu shir jireed baan ku qabanaynaa. Waxaanu ka hadlaynaa isbahaysiga ka iyo wadani oo ah isbahaysi badbaadada qaranka maanta ah oo ay tahay qof kasta oo muwaadina oo dalkaasi inuu badbaado doonaya inuu ilaaliyo ay tahay annaguna aanu nahay odayaasha isbahaysiga marka maalmo dhaweyto ayaa waxaanu media ka yararkani dad duraya isbahaysiga waxaanu leenahay annagu bulshada aanu hoggaan dhaqanka u nahay iyo dhammaan ummadda Soomaaliland ee horumarka jecel waxaanu leenahay isbahaysigaasi waa inuu sidiisa u shaqeeyo waa in madaxweyne musharax iyo ku xigeenkiisa lagu doorto madaxweynaha labada xisbi ururka iyo xisbiga ka iyo wadanina waa inaynu ku soo saarno xisbiyo sidaasaan dadkayga faraynaa waa inagu waajib maanta si kale oo dalkeenu ku nabadgelayaa ma jiro waa inaan isbahaysiga ilaalino madaxda isbahaysigana waxaanu leenahay war idinkuna is ilaaliya oo haddii wax idin dhex yimaadaan inkastoona anagu doogeen wax weyn oo dhex yimid haddana waxaan leeyahay isbahaysigaasi waa muqadas 12 sano way noo hadheen sidiisii ha loo wado anagu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar kumaad waxaan ku celinayaa maanta badbaadooyin isbahaysigaasi ku jirta ninkii wax ka sheegana waa nin ummadda Soomaaliland iyo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda wax u dhameeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida odayaasha iga horeeyay sheegeen maanta waxaanu halkan isugu nimay inaanu kaga hadalno arinta isbahaysiga iyo wanaagiisa waxaan u sheegaynaa taageerayaasha isbahaysiga meel kasta joogaan heshiiska isbahaysigu sidoo ahaa in loo ilaaliyo sidoo ahaa in loo fuliyo wixii xanafa in laga ilaaliyo waxaan u sheegaynaa dadkaan odayaasha u nahay iyo taageerayaasha isbahaysiga ee Soomaaliland meel kasta joogaan ujeedada isbahaysigu waxa weeyaan in madaxweyne ku xigeen la dhiso laguna dhiso Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Maxamed Cali Cabdi oo muhiimadda inuu ugu weyn ee wadankan isbedelkiisa lala doonayo inuu ay dhaliyaan haddii taa la waayo oo la isku khilaafo wax alla wax natiijo oo isbahaysiga laga gaaray iyo guushi la doonayo ma jirto maqsadka labaad urursaasyeedka ka haya xisbiga wadani mid walba inuu xisbi qaran noqdo xisbiga wadani wuxuu xisbi qaran oo ahaa inuu xisbi qarannimadiisa si haysto ku sugnaado urursaasyeedka ka haya xisbi qaran loo gudbiyo ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee wadanka hadii la naftiinu daayo 10 sano soo socda ka jiri doona waa lagu filayay codka uu soo baxayo xisbigu ama ururku ku soo baxaya waa cod kooban waxa la isku kaashaday in madaxweyne lagu helo hadii madaxweyne la waayana ka haday wadani noqotana waxba noqon xisbi noqotana waxba noqon mayso wadan haduu xisbi ku soo noqdana waxba noqon mayso marka ay madaxweyne helaan bay labaduba noqonayaan ay tamarinayaan wax noqonayaan dadkuna ay anfacayaan waxaan leeyahay waa in saddexdaba la soo saaraa la isu bahaystaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka si Soomaaliland isbedel looga sameeyo lagu heshiiyo cod wadaag lagu noqdaa sidii labada xisbi loo soo saari lahaa inta wixii aan ahayn waxaan khasaaro ahayn looga dhici maayo ishayn cid kala tartamaysa oo la isku hayaa mid madaxweyne iyo mid xisbibe dhexdiina iyo ishayn imanin mas'uuliyiinta labada dhinac waxaanu leenahay hadafka dadku leeyahay maanta Soomaaliland halkay maraysa arka is ilaashada wada shaqeeya ujeedadiinu ha noqoto saddexda wadani iyo ka hor laba xisbi noqda محمد عبد الرحمن محمد عبد الله هي محمد علي عبد الله مدحوينه كحيان الله سومالي لا رون بدقليه هرمري برواقي قاده الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم maanta tahay soddonki bishii tobnaad 2024 halkaan joognaana ay tahay degmada Ceelafeen odayaasha halkan fadhiyana ay yihiin kuwa nabadeynta u joogay sidaynu wada ogsoonahay isbahaysiga ka hiya wadani waxay soo bahaysteen oo looga maarmay dalka iyo dadka iyo dalkaba in lagu badbaadiyo isbedel lagu doono sida daraadeed
wixii ay wada gasheen haddaad tihiin taageerayaasha wadani iyo kaah waa in heshiiska laga dhab sheego aad iska ilaalisaan in laydiga faa'iidaysto wakhtigan lagu jiro sideedanaba si cad isbahaysigaas wixii la wada galay sidooda ay u fuleen oo ah in dalka iyo dadkaba lagu soo saaro madaxweyne ahaan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inay ka noqoto xusbi qaran wadanina inay wadanina xusbi qaran u soo gudubto awalba xusbi bay heeday xusbi qaran imakana saddexda xusbiya u soo guulay u soo gudbaya xusbiyada qarankeena ka mid qaan waxaanu leenahay odayaal ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba waxaad ku odaynaysaana u soo saaraysaa si dalkan iyo dadkaniba isbedelo helaan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo maxamed cali aw cabdi kahana waa reer wadaniyow waxaa la leeyahay carabkiina wuxuu kari waayey kaah xusbi qaran ha u soo gudubto wadani xusbi qaran ha u soo gudubto waray carabkiina ha karo oo waxa miidiya aanu ka arkayno iyo dhalinyaradan ka hadlaysa ha ka ilaaliyaan hadalka xanafta le isbahaysiga labadaba waad soo saari kartaan saddex farood baanu leenahay saddexda farood ta madaxweynaha iyo labada xusbiba waa ku fulantiin sidooda u soo saara yaan laydiga faa'iidaysan wakhtigan adag dalkiyo dadku baahi waxay u qabaan oo laysu bahaystay ay isugu tegeen in dalkiyo dadka lagu badbaadiyo inaguna waynu ku garab istaagaynaa dad badan oo xilkasa oo dhaqana oo bulshada reer Soomaaliland ka tirsan abkay doonaan ha ahaadana gobolkay doonaan ka soo jeedaanna way garab istaageen niman odayaalo ilaahay khayr ha siiyo ilaa shalay iyo darhaada saaxiibkii cali guri ku jiraan alxamdulillaah hambalyo wax badan baan idin leeyahay ayaa wanaaga dadka wanaaga u socdow ee xagga wanaaga wax ku doonayo boqolkiiba boqol way garab taaganahay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi anigoo xamse ibrahim jaamac sab tv degmada Ceelifina gobolka Sanaag